السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحنين استدي أفرتك حير أود حير كيسي لبعتناد حير كلا بعتناد وحين نقول لي إنك لهذا ربة جرين عدنا عدني مبوحدة هو هين عدنا بقى عد بوحدة هو نغني بكلية نكاس ورير وحقول لي يا مركا عيدو إسحيان وسياسة دي بالتشوجا يو لولنكي ما هذيك الشخص كاجي عادي جامعها سياسة دي يو لولنكي يو ميله أود مركا تشوجتي الشركة ده كلية ده ميله هو وين أوثورتي يسامين تلوجا بهني هي مركا أي مثلا إمارات قبل دولة بعتي مثلا مركا أي لبع عدود وكلام اللي بدولة ده كلية إسحيان دوقم مذا بيدي dadka doqomada ah ayaa cid gaar ah la safta markiiba oo yiraahdaan markiiba hebel baan la safanay ama dawlad heblaaya la safanay ama shirkad heblaaya ama kooxda heblaaya la safanahay doqomada quraba sidaas sameeyay buu adigu naftaada u daacad u ahaw cidna inaad u heeliso haddaadan dan ka weyn heelintaadaas aadan ka helaynin ha isku dayin markaad giray noqoto kana la safan weyda mid walba ku xisaabtamaya mid walba adigu ku soo tuhmaya adigana lagu soo tartamaya kadibna waxa suur dantii hadad mid si gaar ah adigu ugu bandhigi lahayd inaad la safato danteed ka lahayd laabkeed inaad ka hesho marka lagu soo tartamo waa marka caalamka siyaasadda la joogo marka caalamka mustawaha shakhsiga la joogo maaha wuxuu ku leeyahay cid waliba ha ku tuhunto cid waliba tuhuna ka lahaato anaguna la safanaya anagu sidan oranaya cid walba ha ku tuhuna ka lahaato hadii ay cid isu isugu hadlayso inay ku kasbatay sidii doontaba hadii cid isku hubsato inay gacanta ku dhitay ku kasbatay awooddaas wadwaayisa awoodda saadunta waad weydiiday wad waayisa 1558kii ayuu ka sheekanaya boqoradii la oran jiray Elizabeth ee Ingiriiska xilkiisa qabatay ayaa waxay xilka qabatay oo dhaxaltooyahan xilka ku qabatay iyadoo aan reer lahayn oo inan gashaantiyo bikra ah kadibna waxa loo soo bandhigay inay guursato baarlamaanka ilaa iyo shacabka Ingiriiska oo dhan waxa ugu badan ee uu hadalhayo ka sheekaya waxay ahayd boqoradu xilmay guursanaysa kadibna baarlamaanka soo bandhigay guddi kamid ah soo bandhigtay boqoradu inay dhigeed oo u dhigma oo qalma oo boqora inay guursato si ay cid arshigan iyo boqortooyada ka dhaxasho u dhasho 1560kii ayaa markii u dhaqaaqi weyday 8 sano ka bacdi weeyeen markii xilka qabatay ayaa haddana mar kale uu baarlamaanka soo bandhigay isla fikradii kadibna cid kasta oo isu arkaysay boqorada inay u qalantaa ama ay u dhigmaysaa way u soo tartantay inay boqoradu guursato oo ay boqoradu guur soo bandhigto iyaduna waxba ismay dadajin mid kasta way soo dhaweysay mid kasta si yar qurux badan bay u hadashay mid kasta waxay siisay way u carab laalaadis baa leeyahay talmiixaad yani inaanay wada diidinna doontaan wada rasmi inaanay u muujin laakiin kinda yani inaad yara muhiim tahay way u carab laalaadisay waayadaas Isbaanishka oo ka tilinayay Holland iyo Finland baa labada deegaan ba lagaga kacsanaa ingiriiskuna ciduu la safanaya ma cadeen maadaama Faransiiska iyo Holland ay gaar soo hayeen oo ingiriisku hadba kula safta oo awood weyn helayay labada kula safanaya ma cadeen sida awooded boqorkii Faransiiska damacay inuu aad uga dhawaado boqorada walaaladiisa mid kamid ah oo boqorada uu guuriyo si boqortooyada ingiriiskana uu gacanta ugu dhigo laba amiir oo walaaladii ah ayaa markaas labadoodiba boqoradii hal mar oo wada tartamay oo uu labadoodiba ku dhigala meesha idinku labadoodiba meesha wada ciirsado dekeeyay shabaab kii kale labadoodiba way soo dhaweysatay marka iyaduna labadii amiir basi caadi bay ula dhaqantay mid kamid ah xataa madalaha waaweyn marka la yimaado sidii gabadha Hasaawaan oo kale uu la kaftami jiro magacyada yar oo magacyada odayada hadii jir islaamooda ay ula baxaan nimanku ay xaasaskooda ula baxaan oo kale ayuu siga yeeri jiray kadibna waxay ka saxiixatay heshiis nabad abadiya Faransiisiyo iyo Ingiriis ay ku galayaan heshiiska markii saa gacanta uga dhigtay labadii boqortooyo nabad rasmi ah la siiyay labadoodiiba boos bay ku qabatay iska fogeysay dantii kale markii ka gaadhay labadoodiiba boos weyn ay ku qabatay oo iska fogeysay boqorada la oran jiray Elizabeth intaasoo sano markii talinaysay kadib iyadoo wali inan ah oo gashaantiyo oo bikra oo aan guursanin ayay dhimatay sidii ku dhimatay gabadhaas leeyahay Elizabeth xikmad iyo murtibay ka wadatay markaa inaanay guursan waxay ogeyd haddii nin ajnabiya guursan lahayd oo qoysaska kale boqortooyinka Yurub ay guursan lahayd in bulshada ay qursan lahayd maadaama nin ajnabiya boqor uga dhigtay haddii ay dhici lahayd oo nin Ingiriis ay guursan lahayd oo u dhigmana loolana gudaha baa dhici lahayd oo ragin maamuus leedahay boqorada u qalmay inay guursadaan markii mid kamid ah guursato gudaha loolana ka dhici lahayd inuu qoysaskii maamuus leedahay ay sariyeen lahayd dabtana waxay ku qasbanaan lahayd boqoradu inay dhex gasho loolano aanay shaqo shuqultan iyadu ku lahayn dadadana gaar isku haya ay leeyihiin labadaas dhibaataba way ka hordigaysay gabadhaas leeyahay Elizabeth sidoo kale guurkeedu inay nin guursataa mar liba iyada xukunkeeda meesha ka saar lahaa iyada hooyay noqonaysa uur bay qaadaysaa ilmahay dhalaysaa wadankii waxa si rasmi ah uga talinaya boqorka taladuna inay gacanteeda ka baxdo ma aanay doonaynin
waxay doonaysay wax walba sida imika ay gacanta ugu hayso inay hadhowna gacanta ugu hayso. Wuxuu ku leeyahay markuu tusaalayaashaa soo qaatay, baro xeeladaha muuqaalka guud saamaynta u samaynaya. baro xeeladaha muuqaalkaaga guud adig iyo saad u ekaanayso saamaynta u samaynaya. waxaa ka mid ahna in aanay cidina si buuxda kugu wada xisaabtamin. garsooyinka ugu waaweyn ee muuqaalkaaga guud higilkiiyo saamaynta u samaynaya waxaa ka mid ah inaanay cidina si buuxda kugu wada xisaabtamin oo aanay gacanta kugu wada dhigin. wuxuu ku leeyahay haddii cidi ay isku kaa hadlayso, sixirkii saamayntaada lumaya. sixirkii saamayntaadu meesha uu ka baxaya totalaadan isku ka hadlayo aan garanayo waxaad samaynaysa markaan arkaa kuu soo bandhigo. maaha marka mustawaha shakhsiga la joogo horaan uu yidhi, waa marka mustawaha dowladaha iyo siyaasadaha iyo sistamada la joogo. laakiin mustawaha shakhsiga haddii aanan garanayn waxaan kaaga soo hagaago aad tahay qof laba wajiilahoo midabaynaya, waa kaa tegaya oo kaa fogaanayaabe. waa caalamka siyaasadda meeshan ha ku kadsoomina xeerkaa. wuxuu ku leeyahay markaa haddii cidi isku kaa hadlayso, sixirkaaga iyo saamayntaadii way lumayaan oo way suulayaan. haddana dhanka kale haddii aad dadka u muujiso inaad iska firinaysa iska durkinayso layska kaa ururiyo, iyadana sidoo kale sixirkaaga iyo saamayntaadii way lumayaan. wuxuu ku leeyahay ninka lahdo Robert Greene, cidda taageerada cid kale u degdegta u fiirso, cidda taageerada cid kale u degdegta ee markii dhibaata haysa u dhacdaba taageero kula cararta saamayn ma yeelato. haba yaraatee wax saamayn ma yeelato. mana aha arrimaha shakhsiga ah, waa arrimaha dawliga ah. wuxuu ku leeyahay haddii cid aad walaa buuxa u hayso, waxa walaaga la yidhahdo iyo daacadnimada buuxda aad cid u hayso, ciddaas ayaad addoon u noqonaysaa. ciddaasaad ku daba faylaysaa, ciddaasaa wax walba kuu noqonaysaa haddaad cid walaa buuxa u hayso oo yacni xaggeeda aad u wada janjeersato, ciddaasaa gacanta kugu dhigaysa. waana sababta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu waajibiyey walaaga buuxa isagoo qura in loo lahaado. alwalaa walbaraa waxa la yidhahdo walaaga buuxa ugu dhammayska tiran in isagoo qura loo lahaado, waa sababta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu waajibiyey, maadaama isagoo uu doonayo inaynu addoon noqono wax kale inaan addoon u noqon. wuxuu ku leeyahay Robert Greene, yaanay cidina loolanadeeda shakhsiga ah kuu shidaalsanin adiga iyo saamayntaada iyo rabitaankaaga yaanay u shidaalsanin. wuxuu ku leeyahay markaad gasho dagaal aadan rabitaankaaga ku dooranin, adigu aadan rabitaankaaga ku dooranin, saamayntaada wada waayeysa. meeshan ujeedkiisa wuu leeyahay waxweyn mar walba saamayntaadani muhiim ha ahaato, mar walba saamayntaadani ta asaasiga ah ay tahay inaad ka fikirta ha ahaato. xataa buugga Niccolo Machiavelli buugga Weber la yidhaahdo isla fikradaasuu bixinaya. wuxuu fikradu bixinaya guud buugga uu ku salaysan yahay waxa weeyaan sideebaad boqorow adiguna boqornimadaada u ilaashan kartaa, boqortooyadaadana jiritaankeeda u ilaashan kartaa. kadibna waa halka xataa ay ka soo baxday qaacidada ah alqaayatu tubariru alwasiila. ujeedada iyo higsiga la leeyahay wadada loo marayo way u cudur daartaa. haddii ujeedadu ay tahay in si loo qabsado masalan Somaliland oo kale masalan si loo qabsado in burca la dumiyo buu leeyahay, kadibna Somaliland la qabsado dib ha loo dhiso. ujeedka weyn la leeyahay wadda kala qabsadaha qaab wadadan loo marayo u cudur daaraye. marka sida buugga Machiavelli ujeedkiisa rasmiga ah uu yahay wax walba loo sameeyo si boqorkuna uu boqortooyada u sii haysto u sii adkaysto xilka iyo kursiga uu ku fadhiyo boqortooyadiisuna ay u sii jirto. ninkan isaga ujeedkiisu buuggan oo dhan uu ka leeyahay waxa weeyaan adiguna saamayntaada mar walba ilaasho. qodobka asaasiga noloshan aad ilaalinaysa ha noqoto saamayntaada sidii u kordhi lahayd, sidaad u sii weynayn lahayd, sidaad u xoojin lahayd, sidaad u kobcin lahayd, gebigoodaba inta ha ahaato. xataa saamayntaada si ha kalifto inaad noqoto khaayin, inaad noqoto laba wajiire, inaad noqoto munaafiq, inaad noqoto sifo kastoo xun inaad ku sifaysnaato. marka wuxuu ku leeyahay markaad gasho dagaal aadan rabitaankaaga ku dooran, saamayntaadu way yaraanaysaa ama saamayntaada wada waayeysaaba. dantaadu waxay u farur xidhmaysaa natiijada loolankaas. haddii cidda la safatay ay adkaatana wax aan saa u buuranayn baad ka helaysaa, haddii laga adkaadana dhibkii iyo jabkii waad la qaybsanaysaa. wuxuu ku leeyahay halka cidaha ishaya loolan kasta oo ay galaanba ay ku sii daciifayaan, adigu awood ayaad sii kororsanaysaa markaad bannaanka ka taagan tahay. maanta masalan isu guud Soomaaliya inuu isku keenwada Kenya waxa isku dhacay Ethiopia, dagaal bay noqotay. siyaasadda marka la joogo waa doqonnimo in Soomaaliya intii soo tagtay tahdaan waxaan la safanahay Kenya ama Ethiopia la safana, waa doqonnimo halkii u dambeysay. waa in Soomaaliya ay ka aamusta. xataa dii Kenya ujeedooyin fara badan ay ka dhaxayaan ama ganacsi fara badan ay ka dhaxayaan oo dana badan ay iskaga jiraan, waa in Soomaaliya ay ka aamusta. waa in Soomaaliya taageeradeeda loo soo tartama. Ethiopia way in erga soo dirtaa, Kenya way in erga soo dirtaa. waa in markaa Soomaaliya ay tahdaa maxaad siinaysaa? siyaasadda marka la joogo waa inka mitaan la safanayay maxaad siinaysaa? waa in tiraahdo marka dhulkeenii barigeeda ka qaadan dib idin ku celinayna 50% kamida ay markaa la safanayna raacayna dagaalkan inay ku guulaysto way ku dadaalayna. sidaas oo kale wuxuu ku leeyahay haddii laakiin aad tahay anigu midkiina la safan maayo dibadda idinka joogaya, labadoodaniba way isla daciifayaan. adiguna markastoo iyagu ay daciifaan hoos u sii dhacaan, saamayntaadii iyo awooddaadii baa kordhaysa, heerad labadoodaba hadhow intaad ka dul marto adigu labadoodaba daciif hoostaada waran dar alaaliya dantaad doonto aad ka dhamaysan karayso. haddana wuxuu ku leeyahay saas oo tahay dagaalkii loolanadii cidaha kale ee ishaya ee hareerahaaga ka dhacayay kama wada maqnaan kartid.
kama he wada maqnaan kartid buu ku leeyahay si uun baad ula falgelaysaa si uun baad qayb uga noqonaysaa kama wada maqnaan karaysid wuxuu ku leeyahay cidaha kugu xeeran iyo wadamada kugu xeeran mashaakishooda inaad danaynayso u muuji mashaakishooda iyo dhibaatooyinka haysta inaad danaynayso u muuji si uu turisle u dhegeysa markay baahiyahooda iyo danahooda ka hadlayaan hadiyada ku qarqiyo hadiyada si inaad gooni u taagantad halkaaga gaarkaaga u joogtad adigu awood isu yeesho oo aadan cidna taageero kula degdegini dadkii dhankaaga usoo jinjeerinaysa dadka adiga xaggaaga soo aadaya dadka adiga kusoo tuumayo adiga wax kusoo bidaya haddii laakiin aad adigu taageerada la carataad u tagto markay cid kale isqabtaanba cidda aad danta wada leedihiin haybadaad iyo maqaamkaaga way lumayaan wuxuu ku leeyahay xataa cidda aad la safanaysaa ha ahaato cid baahi aanay kaa maarmayn kuu qabta bedel weynna kuu haysa u fiirsa hadalka cid baahi aanay ka maarmayna kuu qabto aan kaa maarmi karin markay doonto bedel weynna kuugu bedelaysa waxaas aad u horayso maadaama qodobkan uu ahaa qodob siyaasiya oo xagga dowladaha aad ula xidhiidha faahfaahin fara badan isagoo inoogama baahna maadaama siyaaqa buugga uu ka mid yahay maasidiisa usoo qaadanay inahaasuu inoogu egyahay salaamat leh